bangi ahaan iminka sababta kubaddan loo qabanayay marka laga rabo staff engagement policy-ga uu gudoomiyaha Cabdicasiis inoo tilmaamayay waxa kamid ah kubadda wax laga bartaa waxyaabaha laga barta kamid ah in shaqaaluhu ay ka bartaan wax la yiraahdo team work oo aragteen inta kubadda wada ciyaaraysa haddii laga badiyana way wada isgaroobaan hadday badiyana way wada wingareeyaan labada mid hadday barajo noqdaan hadday dhammaan way wada barajo gareeyaan idan lagama dhaxlo kubadda marka la ciyaarayo la yiraahdo adiga laga badiyo aniga lagama badin lagamana dhaxlo in yiraahdo aniga badiyo intiina kale ma idan badinin qof kasta oo kubadda ciyaaraya guul iyo guul darro wixii halka ka dhasha qayb uu leeyahay halka waxaan ka qaadanaynaa marka shaqada baankeena hayna lafteeda taa imika ciyaaraysiin ama rogga kala tiimamkii ciyaarayeen ay wax la qabtaa hal gool buu baanku leeyahay goolkaas baa la wada higsanayaa tiimka ciyaaraya baynu ka mid nahay nin waliba meel ka ciyaaro inaan waliba meel ka ciyaarto haddaynu goolka dhalinan dhammaanteen waynu wada garaynaynaa haddaynu goolka dhalinan dhammaanteen waynu wada luus garaynaynaa cid kaligeed luus garaynaysa ama kaligeed weyn garaynaysa ma jirto marka mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee kubaddan inuu ciyaarayna waxay tahay in la xasuusto oo maskaxdeena ku soo yaro noqoto oo ku yaro raasuqdo waxa loo yaqaan team work ugu dambeyn waxaan hambaleynayaa shaqaalaweynaha ama kooxaha runtii kala duwanaa ee ka qayb qaatay game-kan la ciyaarayay waxaa kaloon hambaleynayaa tiimkii soo qaban qaabiyey maamulkana hayay oo runtii juhdi weyn ku bixiyay waxa xasuustaayo ilaa heer deeg maxkamaday gaadheen dadka qaar sida looyarada loo dhageysto oo war badan baa runtii ka soo baxay go'aamo waaweyn bay gaadheen hawl yar ma ahayn inaad xaakim noqoto oo aad bilaadan u garnaqdaa shaqo yar ma ahayn marka runtii waa idin hambaleynayaa kooxda guuleysatay horta hambaleynayaa hal mar sacabka loo garaaco waxaan isleeyahay operationka Malawi ka tira badan yihiin departmentado marka xagga xulida squad adag kula soo baxeen baan maleynay percentage-ka xagga shaqaalaha waxa laga yaabaa percentage-ka badan bankiga ka noqdaan departmentada qaar baa dad loo qaadamayo wanarkii kullu walka qolada guddida doorka dambe inay wax ka bedelaan ma rajaynaya shuruucda kaas waa qodob weeye waxaan runtii iyagana u hambaleynayaa oo xusid mudan guddidii garsoorka guddida xoogaa waxa lagu xantay waxa yiraahdeen kubadda aad uma waxa way safa iyo waxa filayaa iyo Cabdi Qaadir iyo waxa ahaayeen Yuusuf marka xoogaa dacayada loo gilo xeero kubadda ma yaqaanaan ama aad uma soo ciyaareen laakiin sharcigii markii aan arkay la qoray baasha lagu kala saarayay sharci aad u cajiib ah ma garanayo reference maartay wax filayaa waxay soo qaateen caalamiya ya Cabdicasiis nugul wax filayaa mustambeedku ahaa marka sharciga ku kala saarayeen aad u cajiib ah runtii qodobada sida loo qoray si qurux badan buu abaabuleen waa ka programkuna si fiican ugu dhamaaday intaas uu ugu muhiimsanad runtii isdhaxgalka iyo waxa hadda ku jiray wax filayaa saara ciyaaray rag badan oo waxa laga yaabaa meelo kala duwan jooga aad baan soo arag marka isdhaxgalka bangigu berigii hore waxaan sameyn jirnay event aan walayn sameyn jirnayo imka way adkaato goboladii iyo meel kasta maartin la saga imaado laakiin events caynkan kale la sameeyo la isdhaxgalo aad bay runtii qurux badan tahay waan ku hambalyeynay guddida fikirkuna isla guddidaas uu ka yimid fikirka hadda in la ciyaaro wuxuu ka yimid xafiiska jaarka iyo safaya tiimkeedu ka yimid waan ugu hambalyeynaa runtii maartay inay soo abaabuleen fikirka lahaayeen ka shaqeeyeen innakuna wixii dambe shaalayna ku saacidnooneen inayna baasha serious ka dhigin maartay entertainment-keeda aan ku deynaa hadii la dhaahdo